waxaan casharkeena maanta kusoo qaadanaynaa mowduuc muhiim u ah bulshada, taasoo dad badan aysan ka warhaynin siyaabo khalad ahna loo fasirto. waa casharkan loo yaqaanaa isqaadasho la-aanta dhiigga lamaanaha. waa cillad ka timaada nooca dhiigga lamaanaha isqaba oo isdiidan, taasoo saameyn ku leh cunuga ay dhali doonaan ama ilmaha ay dhali doonaan mustaqbalka. cilladan waxaa afka qalaad loo yaqaanaa RH incompatibility. sida aan wada ognahay, dhiiggu waxa uu u kala baxaa AB, B iyo O. kadib mid walba waxaa loo si kala qaybiyaa plus iyo minus. marka waxaa soo baxaa 8 nooc oo kala ah: A plus, A minus, AB plus, AB minus, B plus, B negative, O plus iyo O negative. haddii aabba dhiiggiisu yahay positive, uu guursado hooyo dhiiggeedu yahay negative, kadibna hooyadu ay uur ku qaado cunug aabbaha ku dhiig ah oo plus ah, waxaa dhacda in cunugaasi uu badbaado marka ugu horeyso, maadaama dhiigga hooyadu uusan ku baraarugin dhiigga uurjiifka. laakiin marka ay foolanayso ayaa labada dhiig isgaadhaan, kadibna difaaca jidhka hooyada ayaa heegan buuxa la geliya si wixii markaa ka dambeeya hadday mar kale qaado cunug dhiiggiisu yahay positive in la weeraro isagoo uurka ku jira, sidaasna cunugu ku dhinto bilaha dambe ee uurka ama markuu soo baxo maalmo kadib. laakiin haddii uurjiifku ku dhiig yahay hooyada, wuu badbaadaa. ciladani waa mid caalamku u wada siman yahay, waxaana looga hortagaa in hooyada la siiyo irbad tallaal oo kale ah bilaha ugu dambeeya uurka ama islamarka ay dhasho, si difaaca jidhkeeda loo hilmaansiiyo ama looga qariyo dhiigga uurjiifka, sidaasna uurka ku xiga uu ku badbaado. nasiib xumo, hooyooyin badan lama soo xidhiidhaan xarumaha daryeelka hooyada iyo dhallaanka, amaba lagama helo meelaha ay ku nool yihiin. sidaa darteed arrintan dad badani kuma baraarugsana, hooyooyin badanna way ku waayaan carruurtooda iyaga oo aan ogeyn, waxaana dhimashada carruurtaas isku xigxiga loo saariyaa in hooyada la sixray, la ilaystay ama jin jiro, khaasatan markuu ninku guursado haween kale oo ay u dhasho ilmo caafimaad qaba. way dhib badan tahay in waalidiintaas laga dhacdhiciyeen cillad noocan ay jirto, taasoo keeni karta in ilmuhu u dhiman doonaan ama ilmuhu u dhiman karo, sababtoo ah waxaa lagu arki karaa qof ka hadlaya arrimo qarsoon oo alle u gaara. dhibka kale ee jira ayaa ah in irbadani qaali tahay lagu hortagayo xanuunkan, dadka badankooduna aysan awoodin, meel kastana aan laga heli karin, una baahan tahay in lagu xifdiyo qaboojiye. haddii hooyadu uur qaado iyadoo aan irbadaas la siin ama irbadaas aan la siin, waa inay la soo xidhiidhaa xarumaha caafimaadka laga helo dhakhtar ku takhasusay uurjiifka iyo dhallaanka, sababtoo waxaa laga yaabaa in uurjiifkaasi in dhiig yari aada u daran uu ku dhaco, markaasna uu baahdo in dhiig lagu shubo isagoo uurka ku jira, ama in qalin looga dhaliyo waqti hore si loo badbaadiyo haddii sanbabadiisu ay koreen. fadlan, haddii aad garanaysid hooyo caruur isku xigta iyagoo meyda dhashay ama foosha kadib ay dhinteen, ku wacyigeli jiritaanka xaaladan si ay dhakhtar ula xidhiidho loona baaro nooca dhiiggeeda iyo ka ninkeeda. aad baad u mahadsantihiin labadaaga asxaabta, waayo waa barnaamij aada u qiimo badan, dadkeeduna ay aada u moogan yihiin. markaasi ogaanshaha dadku u bato waxaa muhiima inaad la wadaagto asxaabta adiga oo sheergaranay.